doro abu doro nala doro la dore nala doro yarkabe nala doro kadore nala doro doro runku dode nala doro yaqana nala doro mustamirle nala doro yarkabe nala doro dalka dore nala doro runku dode nala doro yaqana nala doro mustamirle nala doro aqoon-yahan xamsi cawad cabdi waa musharax u taagan golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ee gobolka sool. aqoon-yahankani waxa uu 10 sano ee ugu dambeeyey ka shaqaynayay waxbarashada, horumarinta kaabayaasha bulshada iyo horumarinta reer miyiga. waxa uuna madax ka ahaa urur aan macaashdoon ahayn oo lagu magacaabo aragti wadaag, kaas oo adeegyo caafimaad iyo mid waxbarashaba gaarsiiya deegaanada ay ka midka yihiin ceeldhaab, oog, caynaba, bal cumar, badweyn, wabagaajo, afweyne, ceeldheere, gebagabo, ilcaarmo iyo fiqi ayuub. aqoon-yahankan oo ka baxay kulliyado kala duwan iyo xiliye kala duwan, waxyaabaha uu bartay haddaan wax ka tilmaamno waxaa ka mid ah cilmiga maamulka iyo maaraynta oo uu ka gaadhay heerka master degree, cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga. sidoo kale wuxuu ka baxay kulliyada waxbarashada iyo kulliyado kale. aqoon-yahankani xilligan waa bara sare oo ka howlgala dugsiyada sare ee jaamacadaha dalka. sidoo kale waa falaqeeyo siyaasadeed oo ka faallooday siyaasadda geeska afrika ee baaxaadegaysa. aqoon-yahanku waxaa kale uu ka soo shaqeeyey ururadii siyaasadeed ee somalilan. bal markan aan qadar idinka maqashiyo maruu adeegyo kala duwan u gaadhsiiyey deegaanada badweyn iyo balli cumar. halkan maanta joognaa waa magaalada balli cumar, waa midowga nabadda iyo horumarka aragti wadaag. waxyaalaha aan maanta aan u soo baxnay waxaa ka mid ah inaan maxaa loo yaqaanaa goboladan bariga inta karaankayaga aanu fiil caafimaad aanu ka fulino. ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala, ilaahay wuu nagu guuleeyey. halka hadda iminka meeshaan joognaa waa magaalada balli cumar. magaalada balli cumar runtii waa magaalo ay duruufi ay taagan tahay, waa waajibna saaraa maadaama aanu nahay aqoon-yahanka dadkan deegaankan. waxaan ugu baaqayaa deegaanada dadka ka soo jeeda goboladan bariga, dadkan halkan jooga runtii MCH ma laha, xarun caafimaad ma laha, baahiyahooda in runtii wixii laga qaban karayo laga qabto. annaguna aragti wadaag ahaan wixii karaankayaga insha Allah waan ku qaban doonaa. hadday tahay waxaan ku darsano, hadday tahay inaan wacyigelin siino, hadday tahay baahiyahooda inaan soo gudbino. bartanaan joognaa waa magaalada badweyn. waxaan ka fulinay barnaamij caafimaad oo daryeel bulsho ah oo mutadawacnimo ah. waana mid ka mid ah barnaamijyadan ka fulinay deegaanada gobolka sool. midowga nabadda iyo horumarka aragti wadaagna ma aha waxa cid gaara ay ka doonaysay, waa mid ka mid ah waajibaadka dhalinyaranimo, waajibaadka muwaadinimo. marka laga hadlayo muwaadinka waa ka wuxuu qaban karo qabtaa. runtii waxaan u aragnaa aragti wadaag ahaan inaanu qabanay waajibna saara annaga tuumaadsiin qolada saxaafadda oo si hagar la'aan iyaguna halgan noola shaqeynaya. aqoon-yahanka oo ka faalloonaya arrimaha siyaasadda ee dalka guud ahaan aan mar kale isagana qadar idinka maqashiyo. xaqa aad u leedahay si xora inaad u hadashaa baa haddana la yidhaahdaa waa inaanu cid kale khusuusaadkiisa wax yeelayn. matal waxyaalaha inta badan dhacda waxaa ka mid ah dadka akademiga ka dhacda. maanta markan wasiir hebel dhaliilayo ma oran karo wasiirka faamiligiisii isaga shakhsiyadiisii waa inaanan wax u dhimin, laakiinse maxaa laga rabaa asa nidaamka uu hayo aan dhaliilo, laakiinse isaga shakhsigii ma dhaliili karo. nidaamka noocaasiya baa ka hor imanaya akhlaaqda iyo anshaxa habka wax loo dhaliilo. dhanka kalena aqoon-yahan xamsi cawad cabdi ururka uu madaxda ka yahay ee aragti wadaag oo ah urur aan macaashdoon ahayn, wuxuu adeegyo caafimaad oo isugu jira baaritaan, daaweyn iyo talabixinba uu ka fuliyey deegaamada gebagabo iyo fiqi ayuub. mar kale aqoon-yahanku arrimahaasi ka hadlaya aan idin kala baxo. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waxaan joognaa magaalada gebagabo, degmada gebagabo. runtii farxad bay noo tahay annagoo bahda ururka nabadda iyo horumarka ee aragti wadaag ah inaan maanta ka fulino mid ka mid ah shaqooyinkii masdawacnimada ahayd aan u qaban jirnay shacabka reer Somaliland. ma aha markii ugu horeysay ururka aragti wadaag runtii ay ka fuliso barnaamij caafimaad. mana oran karno waxaan cid ka doonano wax runtii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajar ka doonano.
ururka aragti wadaagna waa mid ka mid ah shaqooyinka muwaadinimo ee mar walba uu qabto aad baan ugu faraxsanahay runtii bulshadeeda inaan wax u qabano oo wixii dareenkayga iyo waxaan tari karno tarno insha Allah ma joojin doono barnaamijkan maxaa la dhahdaa la xiriira xagga caafimaadka sidoo kale ururka aragti wadaag kaliya caafimaad ka shaqeeymaayee waxyaalo badan insha Allah noo qorshaysan baa jira hadii la yarto noo daayo aan doonano ka qabano deegaamadan ما نقدر نطمر كوادي يعني برتن كفلينو برامج عافمات حق waxbarashada xagga nabada xagga maxallo yaqaana horumarka wixii taalka aan qaban karno insha Allah bulshada reer Soomaaliland iyo bulshada maxallo yaqaana shacab dadweynaha qaranka Soomaaliland intaba diyaar baan u lahayn aad bay noo soo dhaweeyeen deegaanka gabagabo dadka ku nool aad bay u mahadsiin teamka aragti wadaag oo mid ka mid ah waxyaalihii waajibaadka muwaadinimo maanta aan qabsanaynay ayaan ku nimay maanta magaalada Afqiyub runtii sharaf iyo karaama ay noo hayd inuu halkan maayar lagu soo dhaweeyo Cusmaan waan uga mahadnaqaynaa runtii sida ixtiraamka iyo qadarinta la noo soo dhaweeyay waxa la yiraahdaa safarkan ku ka talaabo hal talaabo ka bilaabma horumarkuna wuxuu ka bilaabmaa wax yar oo la sugeeyay hadii bulshadeenu qof kasta wixii karaankiisa uu qabsado mustaqbalkeena insha Allah uu hagaagi doona caafimaadkeenu uu hagaagaysaa waxyaalaha hay'aduhu sidaan ay dhaalenoo keenaba shilmaad yar oo la isku ururiyay oo waliba kiniisada lagu soo ururiyay baa loo keenaa wadamada under developmentiga runtii inaga wax qabsan karayna ma noqon doonto markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad aan nimaadno ama barnaamij caafimaad fulino ururka aragti wadaagna waxyaalo ka shaqeeya waa caafimaadka waxbarashada nabadda sidii aan deegaanada kale uga fulinay baan magaaladan dawo ku wareejin doonaa maanta maayarkan dawada markaa ku wareejin doonaa maanta hadii Ilaahay nafta noo daayo waan u mahadnaqayaa sida fiican ee sharafta loo soo dhaweeyay si kastaba ha ahaatee aqoon-yahan Xamse Cawad Cabdi oo u taagan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa taageero ballaaran ka haysta deegaanada uu ka soo jeedo maadaama oo uu hore isagoo aan xil haynin deegaankiisa uu wax badan u qabtay waxa kale oo taageero xal uu ka haysta ururada bulshada rayidka ah oo iyagu ku booriyay inuu musharax ka noqdo golaha wakiilada